أخيار تابدا نجال حريرته واحد كسو دبات ور وحي الدنيا دافها عالم كان جسوا جاري قضى بدل ما أنتوا دور كورونا وحقيب كأ مريكان كأوشة إن عذر كورونا فيروس كأويا مصيبة وجوب لارن الدنيا كده عيسى كان وريه هدا ضير عبد الرحمن بوال محمود وكما قاعدير عطوشيره wuxuu ku nool yahay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waa wiil daadiisu tahay 19 sano jir ahna arday dhigta fasalka 8aad wuxuuna jecel yahay mustaqbalka inuu noqdo wariye magac weyn leh wuxuuna aad u xiiseeyaa wariyaha BBC-da ee Cabdirasaaq Xaaji Catoosh asiguna keena codkiisa haddii aad dadka ku daawanayaan aad isbarto adigoo inta badan ee dadka FM-ka ka dhageysta ku murmaan Catoosh ma hadlaya ama Cabdiraxmaan Buubaal marka dadka ku daawanayaan isbar in horta awalan waan salaamaya asxaabta in hadii aan hor u gudgalno halkani waa BBC oo idin kala hadlayso muujadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga dhageysan kartaa magaalooyinka qaar internetka ciwaankeena waa bbcsomali.com qodobada warka duhurnimada ugu door karan waxa qayb ka ah dawladda Mareykanka oo ka caawinaysa dawladda Soomaaliya qalab ay kaga hortagayso cudurka coronavirus-ka wasaaradda duulista hawada oo joojisay duulistii oo ka socotay gudaha dalka Soomaaliya ruux Soomaali ah oo u geeriyooday xanuunka caabuqa coronavirus-ka wararka kale ciyaaraha waxa aan ku soo qaadan doono waxa qayb ka noqon doona naadiga Chelsea oo u gacan haatinayso laacibka reer Brazil ee Philippe Coutinho kama marna barnaamijka waayaha toddobaadka ee BBC-da Cabdiraxmaan Buuwaal Maxmuud oo ku magac dheer Catooshire xilli aan wareysi la yeeshay ayaa wuxuu iyaga sheekeeyay taariikhda noloshiisa in magaciigu waa Cabdiraxmaan Buuwaal Maxmuud oo ku magac dheer Catooshire in waxaan ku dhashay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe in sanadka markuu ahaa 2000 in da'deedu waa 19 sano jir waxaan ku dayadaa wariyaha caanka ah ee laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxaan aad u jeclahay in warbixinadiisa oo aan inta badan aan aad ugu xiranahay sidoo kale hadda waxaan ahay wariye ka howlgala warbaahinta Jowhar aniga yareentaydi marka aan dugsiga dhiga jiray aad baan u xiisay jiray saxaafadda waxaan ahaa qof aad u jecel dhanka iyo warbaahinta marka laga hadlayo in dadka qaar xitaa waxay isweydiinayaan in sida aan ugu biiray in saxaafadda aniga markaan ku soo biirayay in da'deedu waxay ahayd 16 sano jir in hadda in 3 sano ayaan ku jiraa oo 2016 ayaan ku soo biiray in dad aad u fara badan oo taageer ii ahaa ayaa ugu dhaliyay in aan la baxo magac Catoosh maadaama aan aad ugu hadlo in asxaabta hadii aan mar kale aan ka shaka bixiyana waxa kamid ah qodobada warka maanta ugu door karoon waxa qayb ka noqonaya Arsenal oo doonayso laacib u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barca Chelsea waxay u dhaqaaqi doontaa soo xirigelinta Ter Stegen iyo laacibka reer Brazil ee Philippe Coutinho kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iska diiday in ay bixiso aduun lacageed oo gaariya 120 milyan oo ganiga Sterling-ka kaas oo ay ku heli lahayd laacibka reer England Jordan Santos oo garabka kaga ciyaaro in inta badan waxaan tabiyaa ciyaaraha oo garoomada Shongale Stadium iyo Xasee Kumari aan ka tabiyaa in sidoo kale warbaahintana waxaan ka tabiyaa ciyaaraha in anagu oo aad u xiiseeyo sportiska Yusni Maxamed Axmed Bulsho TV magaalada Jowhar